السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا مركه هراء ضمان شعبك سومالي لان سلام يا ملكستي جوغان مركه حكته هدي أين وحير أجنو أرمهن دبدا دلك جمهورية سومالي لان يضو أي صباح عيسو إن خضية جمهورية سومالي لان أما خضية إنه جشرنو جد سعودك إن خلادات بدن يضو أي كم موقته in xukuumaddeenu ay ku caddahay inayna khadiyada raadin in maaragtay shacabka Somaliland iyo dhammaan qof kasto muwaadina uu xaq u leeyahay inuu arko khaladaadka isdul saaran hadii aynu dib u jaleecno mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo talada dalka markuu ku guuleystay arrimaha dibadda ee dalkeena picture-ka ka muuqda ama image-ka laga daawanaya waa mid khatar ku ah jiritaanka dalkeena jamhuuriyadda Somaliland iyo geedi socodka iyo hadafka aynu leenahay oo ahayd inaynu caalamka ka dhaadhicino shacabka Somaliland khadiyadoodu inay tahay cid maaragtay laga yeelayo iyo cid loo daba fadhiisanaya inaysan jirin waxaan shacabka Somaliland aan xasuusinayaa intaanan ka hadal foreign policy-geena in shacabka Somaliland abaaraha waqtiga xaadirka ah saameeyay ama dalkeena uu maaragtay marxaladda uu marayo oo marxalad aad iyo aad u cakiran shacabka Somaliland anigoo marka hore gaarsiinaya qof kasta inuu shacabkiisa iyo dadkiisaba uu naxo oo wixii awoodiisa uu ka qayb qaato xukuumadda iyo golayaasha kale ee jiraba waxaan u soo jeedinayaa marka hore anigoo waliba mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo gaarsiinaya caawa inuu budgetka ama miisaaniyadda dalka inuu joojiyo si loo qoondeeyo muddo 3 bilood ama 4 bilood ah loo leexiyo miisaaniyadda oo loo siiyo ummadda ay dhibta iyo barakacu uu ku dhacay ee dadkeennii ah xukuumadda miisaaniyadda dalka hadii aan wax yar xukuumadda aan xasuusiyo waxa loogu talagalay waxa weeye ilaalinta iyo adeega shacabka Somaliland maantana waa markii ugu xumayd oo ahayd in miisaaniyadda iyaga la geliyo oo iyaga lagu badbaadiyo anigoo gaarsiinaya xukuumadda iyo garwadeenka uu ka yahay mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo madaxweyne dhammaanteen maaragtay inoo ah madaxweyne sharafna inaga mudan runtii arrimaha dibadda haddaan eego wax yar xukuumaddu talada markay ku guuleysatay miyay raadisay ictiraafka Somaliland waxaan shacabka Somaliland aan xasuusinayaa dastuurka jamhuuriyadda Somaliland inuusan qabin raalina ka ahayn hadafka iyo himilada aynu leenahay inaynu cid kala hadalno ama gorgortan aynu galno iyadoo mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo uu furay wada hadalka Soomaaliya iyo Somaliland taasoo iyadana ku ahayd maaragtay khadiyadeena iyo ictiraafka ku ahayd dhabarjab weyn oo maanta maaragtay soo baxay aynu wada arkayno waayo beesha caalamku waxba ma qarinayso waynu ognahay xaaladeenu meesha ay marayso iyo ictiraafka Somaliland maanta caalamka in meel kastaaba ay leedahay arinta iyada waa arin faraha laga qaaday Somalilandna waa maamul ka tirsan Soomaaliya iyadoo lagu soo celcelinayo hadii aan wax yar isdul taago aad ku noqono foreign policy-geena ama international relationship-ka aynu caalamka la leenahay intuba waa disaster walaalayaal waayo waa inay ka turjumaan khadiyada iyo jiritaanka Somaliland ilaalinteeda laakiin hadii xukuumadda ama siyaasadda ragga loo dhiibay ay dhaawacayaan khadiyadii Somaliland ama ay baabiinayaan taa iyada waxa weeye wax shacabka Somaliland iyo qarankeenuba uusan geeyin oo u baahan in la isxasuusiyo runtii hadii aan jaleeco waqtiga xaadirka ah waxa qaaradan Europe especially Europe gudaheeda joogay wasiirkeena maaragtay arrimaha dibadda Saad Cali Shire iyadoo la arkayay Saad Cali Shire sida aad la wada socoteen jaaliyadda Europe iyo jaaliyadda maaragtay anigoo waliba aad iyo aad u qiimeynaya jaaliyadda ku nool Denmark oo aad iyo aad ula xidhiidhay wasiirka oo ballama samaysay si khadiyada loo tuso maaragtay baarlamaanka ama loo tuso wadamo badan oo Europe gudihiisa ah runtii Saad Cali Shire oo ah wasiirkeena arrimaha dibadda waxa aad iyo aad loola yaaba oo dhacday oo shacabka Somaliland ay marxaati ka ahaayeen in Saad Cali Shire dalkii uu tagay
in jaaliyadda Soomaaliyeed ay wadayba iyadoo oo la arkayay oo soo baxaysay diasporada Soomaaliya gudoomiyaheeda oo waday wasiirkii arrimaha dibadda ee dalka Jamhuuriyadda Somaliland runtii taa iyada waxa aad iyo aad u timi marka iyada in shacabka Somaliland ay ku kala qaybsamaan arinta imaanshaha uu yimi wasiirkeena arrimaha dibadda uu yimi dalka Denmark isagoo oo Soomaali weyn arrimihiisii oo dhan maaragtay gacanta u saaray ama ay wadeenba taa iyada waa arin aad iyo aad shacabka Somaliland in ay u dareemaan oo ay arkaan inay tahay haddii aan wax yar dib ugu noqdo arrimaheena dibadda wadahadalka Soomaaliya iyo Somaliland waxaan qabaa shacabka Somaliland badidiisuna ay qabaan xukuumadda iyo xusbiyada mucaaradka aanu gaarsiinaynaa in arinta iyada la joojiyo waayo arinta wadahadalka Soomaaliya iyo Somaliland carqabad iyo waxay ku tahay maaragtay dhibaato badan bay inagu tahay haddii aynu eegno wax yar aad xasuusataan wadahadalka Soomaaliya iyo Somaliland markuu bilaabmay sidaynu la wada soconno intii ka horeysay caalamku waxay oranayeen Somaliland waxa ka jirta dimuqraadiyad beesha caalamka oo dhan way qiraysay laakiin waqtigan wadahadalku uu bilaabmay oo la is hor fadhiistay dhaawac weyn oo siyaasadeena arrimaha dibadda ayaa walaalayaal soo gaadhay caalamka waxaynu u baahanahay diblomacy badan aynu kaga dhaadhicino khadiyada aynu leenahay inagoo ilaalinayna inagoo shacabka Somaliland kuwooda dibadda jooga iyo kuwooda gudaha jooga labadaba isku xidhayo oo khadiyadan tusaya in shacabku ay leeyihiin laakiin hadduu wasiir uu iska soo raaca diyaarad oo wasiirkii la arko isagoo oo jaaliyadii Soomaaliyeed miitin la qaadanaya waxa weeye taa iyada waa mid caqabad iyo ku maaragtay dhaawac qaranka Jamhuuriyadda Somaliland way dhacday mudane Siilaanyana anoo xasuusinaya iyo xukuumaddiisa waxa dhacday hadda ka hor wasiir Shucayb in lagu arkay isagoo oo jaaliyadda Soomaaliyeed dhex fadhiya kana qayb galay inaynu maamul goboleed aynu nahay oo kale miitinkii Yurub ka dhacayaad wada arkayseen hore dabcan shacabka ee dhageysanaya ee dhan ee Somaliland waxaan u soo jeedinayaa in aynan marnaba aynan inagu niyadeena aynan xumayn waayo khadiyada xaq baynu u leenahay laakiin xukuumadii raadin lahayd ama dawladii raadin lahayd ayaan raadin tusaalena waan idin tusayaa caalamka haddaynu eegno wadamada reer galbeedka abadidiisu waxay baleeyihiin ay soo bandhigayaanba Somaliland markay noo yimaadaan oo dibadda yimaadaan ama baarlamaanna ha arkeen ama wasaarada kale oo arrimo dibadeedba ha arkeen intuba waxay qirayaan Somaliland xukuumadeedu waxay ka hadlaysaa waa arrimo dhaqaalaha la xidhiidha ee kama hadlayso ictiraafka Somaliland taa iyada waxaan xasuusinayaa shacabka iyo dawladaba hadafka ugu weyn ee shacabka Somaliland ay leeyihiin waxa weeye madax banaanida Somaliland in la raadiyo waxay ahayd marka iyada inaynu beesha caalamka ilaalino beesha caalamkana aynu kasbanno xukuumadeena waxa ku cad oo wada arkayseen inay tiri beesha caalamku dalka Jamhuuriyadda Somaliland ka baxdo taas oo wax lala yaabo ahayd waayo beesha caalamka Somaliland iyada u baahan waayo siyaasadeena arrimaha dibaddu waxay u baahan tahay waxa weeye ictiraaf baynu u baahanahay ictiraafkuna wuxuu ku xidhan yahay waxa weeye beesha caalamka laakiin beesha caalamku Somaliland ha dhaafto waxaan u malaynayaa taa iyada waxa weeye xukuumadda oo qarinaysa inay jiritaanka Somaliland ay diidan tahay dhinaca kale haddaynu u guurno wax yar aad eegtaan xukuumadda uu garwadeenka ka yahay mudane Siilaanya waxa dalka yimi intuu hayay dhaawac aan cid u adkaysanaysa iyo cid qarinaysaaba aysan jirin siday u dhacdaa dalka Jamhuuriyadda Somaliland madaxdii Soomaaliya ugu waaweyneyd inay Somaliland iska soo galaan miyana taa iyada ahayn Somaliland inay tahay gobol ka tirsan Soomaaliya iyadoo dawladda uu hogaaminayo mudane Siilaanya qarinaysa waayo waxaan la yaabay Faroole oo ahaa cadawga ugu weyn ee dalka Jamhuuriyadda Somaliland ay lahayd oo dawladda caynayay oo khadiyada ayada diidanaa oo la arkayay xataa dagaaladii ka dhacayay
buurtan la yiraahdo maxay ahay toolay galgala oranayay xataa inaga oranayay dambiga iyaga ayaa wada Somaliland inuu yimi oo Somaliland intuu soo galay uu tartiib hadana uu iska baxay taa iyada xukuumadda waxaan weydiinayaa jiritaanka Somaliland ma daacad bay ka tahay mise waxa weeye shacabka Somaliland waxaad rabtaa inaad afduubto oo Soomaaliya aad hoosgeyso taa iyadana nin yeelaya iyo qof yeelaya oo shacabka Somaliland ma jiro wax aan la yaabay oo waqtiga xaadirka ah magaalada aynu leenahay ee Hargeysa ku sugan waqtiga xaadirka ah madaxweyne ku xigeenkii maamul goboleedkan Soomaaliya ee dariska inala ah ee Puntland ninka la yiraahdo in Cali Shire oo u ahaa faroole madaxweyne ku xigeen waxaan aad iyo aad ula yaabay xukuumadda aan marnaba ilaalinayn dalka jamhuuriyadda Somaliland waxa dhaawacaya waxa hadana xamar ka yimi oo la wada arkayay niman badan oo midnimada Soomaali weyn rumaysan iyagoo badidoodu ragga iyaga ay ahaayeen isaaq ay wada ahaayeen laakiin waxa loo baahan yahay waxa weeye ninku hadduu isaaq yahay iyo hadduu qolo kale yahay in qaranka jamhuuriyadda Somaliland hadduu ku gafay in sharciga la hor keeno walaalayaal dastuurka jamhuuriyadda Somaliland wuxuu u baahan yahay hal qodob oo lagu xisaabtamo oo qofka qaranka iyo jamhuuriyaddeena dhaawacaya lagula xisaabtamo laakiin nin kastaba haddii wax loo diido xamar buu aadaya oo wuu soo noqonaya oo dawladda u yeedhaysa oo dawladda casuumaysa that means markaa dee Soomaaliya inuu ka tirsanahay walaalayaal shacabka Somaliland ay dhageysanaya waxaan u soo jeedinayaa geedi socodka iyo arrinta aynu raadinaynay maanta meel xun bay marayaan laakiin shacabkeena waxaan u soo jeedinayaa inaynu gacanta bari ilaa galbeed is haysano xukuumadda iyo xusbiyada aynu leenahay intuba waxa ku cad cadowga qaranku uu leeyahay maanta inay tahay waayo waa inaynu ilaalinaa wax kasto inagu aynu isku qabno iyo wax kasta oo jira hadafka qarankan uu leeyahay interest-ka ummaddu ay leedahay oo ugu weyn waa jiritaanka Somaliland iyo sidii loo raadin lahaa dabcan laakiin haddii Soomaaliya la wada hadlayo oo xusbiyadiina la leeyahay Soomaali bay xidhiidh la leeyihiin Faysal Cali Waraabe la leeyahay xidhiidh buu la leeyahay maxay ahay toolay Soomaaliya dawladdiisa ilaahay ay ku cadahay in maaragtay waqtiga xaadirka ah ay joogaanba niman Soomaali weyn ah aad iyo aad baan xukuumadayda caawa ugu dhaliilaya inuu galaal oo ahaa ninka ugu weyn maxay ahay toolay mooryaanta xamar joogta inuu dalka ayaga intuu soo galo uu TV-yada ayagii uu ka hadlo waxa weeye wax loo dul qaadanayo maaha Axmed Siilaanyo iyo xukuumaddiisu waa inay cadeeyaan inay raali ka yihiin in aynu Soomaaliya inay nagu celiyaan taa iyadana waa arrin u taala shacabka Somaliland jiritaanka Somalilandna qof bedeli kara ama Axmed Siilaanyo ha noqdo ama niman kale oo Soomaaliya ka imanaya ha noqdeene ma jiro walaalayaal qarankan waa qaran isku tashaday waa qaran la wada raadinayo laakiin maanta raba shacabka Somaliland bari ilaa galbeed wax walaalayo oo gacanta isu saara oo caalamka tusa inay ka maqan tahay madax banaanidoodii shacabka Somaliland waa isku dan waxaanan u soo jeedinayaa had iyo habeenba inay gacanta isqabsadaan cadowga Somaliland maanta ugu weyna waydu aragtaan waxa weeye waa qof kasta oo diidan madax banaanideeda wassalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh